ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 26aad waa waan u mahad celinaa Ilaahay. Bar ilmahaaga inuu Ilaahay u mahad celiyo. Mahadnaqidu waa mid ka mid ah shucuurteena. Waxaan ku mahadinaa wax walba oo wanaagsan ee nolosheena leedahay iyo in lagu mahadiyo waxyaalaha aynu haysan. Tusaale ahaan ku dheh ilmahaaga, Ilaahay baa mahad leh inaan wada joogno, noo fudaydiyey helitaanka meel lagu noolaado, cunto, biyo nadiif ah, asxaabta iyo qoyska xitaa noo fudaydiyey helitaanka kombiyuutarka. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaaga leeyahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.